anigoo ugu mahadcelinayo waxaan maanta dareenkayga aniga iyo jaaliyadda iyo shacabka ku nool wadamada khaliijka iyo sacuudiga iyo qurbajoogta dibadda ku nool dhan iyo Soomaaliya oo dhan waxay u tahay maartay farxad iyo reereyn. Soomaaliya waxay kamid ahayd dadkii aasay ururka IGAD laakiin 29 sano iyadoo kaga maqneed arrimo ku saabsan gudaha Soomaaliya oo ka dhacin laakiin shirkan waxaan tusinaysaa dadka caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed naftigeed inay ku kalsoonaan karaan Soomaaliya qaban karto shir kasta heerkuu yahay. Marka waxaan leenahay waa guul soo hoyatay dawladda Soomaaliyeed waxaan mahad iyo maartay ugu celinaynaa madaxda dawladda ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Sheekh Abdul Xasan Sheekh Maxamuud howlwadeenada wasaaradda khaarijiyada oo ayagana maartay firfircooni dheeri muujiyay kan soo baxay kaalintii loo dhigay oo ahaa in mowqifka Soomaaliya xaaladda Soomaaliya adduunka ay tusiyaan aad ummadda Soomaaliyeed meel ay joogto maanta waxay u tahay maalin farxad leh taasna waxay tusaale u tahay xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo guulihii ay ka gaadhay siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga laana waxay ku tusinaysaa maanta uu ka dhaco magaalada Muqdisho shirkii ugu horeeyay wasiirada arrimaha dibadda ee IGAD marka waxay la tahay in ay tahay maalin weyn ay u tahay ummadda Soomaaliyeed oo ku soo noqotay doorkii ay ku lahayd geeska Afrika. magacayda waxaa yiraahdaa Xabsan Madax Cabdulle waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay 29 sano kadib in magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ay ku kulmaan isla markaana uu ka dhaco shirka wasiirada arrimaha dibadda wadamada IGAD waa arrin aad loogu farxo waxay ka turjumaysaa in caasimadda Muqdisho ay tahay meel aad ammaan u ah isla markaana qof kasta oo Soomaali ah uu ku farxi karo waxaana aad iyo aad ugu mahadcelinayaa doorkii wanaagsanaa ee laamaha ammaanka ay ka qaateen qabshimida shirkaas. shirkani marka ugu horeysa waxaa muhiim horta in Soomaaliya muddo burbur iyo dagaalo sokeeye kadib ay mar lahaan arko Soomaaliya oo cid marti gelinaysa isla markaana ku soo noqotay saaxadii adduunka oo sida adduunka oo kale madaxdu u imanayaan oo ay ka qayb galayaan shirar caalami marka horta waa tallaabo hore loo qaaday waxayna muujinaysaa in amniga Soomaaliya uu ka soo reerayo Soomaaliyana ay qaadanayso meesha ay kaga jirtay caalamka qarannimadeeda ay la soo noqonayso. almuhiim shirka la qabtay waa guul waxaan leeyahay anigoo ah Cali Maxamed Maxamuud waxaan aad u faraxsanahay shirkii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho golaha wasiirada IGAD kaasoo bag cusub u furaya dawladda federaalka Soomaaliya. magacaygu waa Maxamed Cabdi ku magac dheer Qoqaan waxa mahad iskale Ilaahay runtii waxa kaloo mahad iskale maxay ahayd